بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو ويل ميديا هدي اي تاي مركي كوو هوريسي هاد سو بوقتو كانالكينا سبسكرايب نو سار جنبليل كفرو سي اد لا سوعتو 10 taxana aan soo galin doono casharkeen waxa uu ku saabsan yahay topic about prayer waa mowduuc ku saabsan salaada topic about prayer waa mowduuc ku saabsan salaada sanis maadaama we are muslims ay nahay muslimiin I would like to start my speech waxaan jeclaystay hadalkayga ku bilaabo in the name of Allah magaca Ilaahay the most merciful and naxariista gaara leh and most compassionate iyo naxariista guud after that inta ka bacdi I want waxaan doonayaa to say inaan ka yiraahdo few words kelmado kooban about prayer oo ku saabsan salaada so sidaa daraadeed listen to me wal si fiican i dhageyso as we know sidaan ognahayba prayer salaadu is one of the 5 pillars of Islam waa mid kamida shanta tiir ee Islaamka every person qof kasta with sane mind oo miir qaba is wanted waxa looga baahan yahay to keep it well inuu si fiican u ilaaliyo because maxaa yeelay our religion diinteenu commands us waxay nagu amraysaa inaga to pray inaan u tukano constantly si joogto ah and our holy prophet Muhammad nabigeena suuban ee Muhammad peace be upon him naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee are good muslims muslimiinta wuxuu ku boorinayaa not to neglect inaanay dayicin the prayers salaadaha prayer salaadu it's the only rope waa xariga kaliyaata which connects taasoo isku kan xidhaysa you adiga to Allah iyo Ilaahay finally ugu dambeyntii we must keep waa inaan ilaalinaa prayers salaadaha maasantahay daawashada iyo dhageysiga fiidiyogan haddii fiidiyow ku cajabiyay like noo saar dhiirigelin bay noo tahay